tababarkan oo ahaa mid ay soo qaban qaabiyeen wasaaradda haweenka iyo xuquuqul insaanka dowlad goboleedka Galmudug loona qabanayo golaha deegaanka degmada Gaalkacyo kaasi oo ku saabsanaa xuquuqul insaanka sidoo kalena loo qabanayo golaha deegaanka degmada Gaalkacyo iyo qaar ka mid ah bulshada reer Gaalkacyo ayaa ka dhacay magaalada Gaalkacyo ee xarunta gobolka Mudug tababarka oo ahaa mid aqoon kororsi ah oo bulshadii ka soo qayb gashay iyo xildhibaanadii golaha deegaanka ay ka faa'iideen wax badan ayaa halkaas waxa ka dhashay iskaashin kala duwan oo ay sameeyeen dadka golaha deegaanka iyo bulshada ka soo qayb gashay tababarkan qaar ka mid ah dadkii ka soo qayb galay oo la hadlay 5 Somali TV ayaa sheegay in wax badan ay ka faa'iideen tababarka maanta ay qabatay wasaaradda haweenka iyo xuquuqul insaanka dowlad goboleedka Galmudug waana kuwana ayagoo la hadlay 5 Somali TV marka hore ku soo dhawaada seminaarkeena saakay seminaarkan saakay wuxuu ku saabsan yahay qareemida xuquuqda aadanaha ee bulshada deegaanka ku sugan runtii intiinana waxaa matalaysaan bulshadii deegaanka ku sugneed ha ugu horeyso xildhibaanadii golaha deegaanka shaqaalaha dawladda hoose iyo dadka kale bulshada rayidka socdo seminaarkan intuu socdo ustaadkan noo soo jeedin doono waxaan kaga baahanahay inaa si wacan u dhageysataan aqoonta halkan ka qaadaan waxaan ka rabnaa in insha Allah deegaankii dadka ugu shaqeysaan waan mahad celinayaa macallimiinta iyo sidoo kale hay'adda barnaamijkan taabagelinaysa iyo dhammaan ardayda ayaguna ka soo qayb galay wasaaradda haweenka u mahad celinayaa su'aasha sadaan isku dayno horta xildhibaanadu meel cilaa kama istimaaneen waxay ka yimaadeen bulshadayna ka yimaadeen haddar haddii bulshadu ama dawladda hoose wax qalado ama wax iska bedelaan bulshada si u socoto u tagi mayso maayarka nin kasta ama qof kasta waxa ka yimid xubin golo deegaan ayaga loo yeeray ayaga laga hadlayaa xaalad kasta haddii rabo magaalada in maartay shaqo oo horumareed ku saabsan haddii rabto in magaalada wax lagu kordhiyo haddii magaalada dib dhac ku yimaado bulshadu waxa ugu horeeya kala hadlayaan waa golaha deegaankana dee marka hore waxay ka yimaadeen bulshada marka waa shaqayn xooggan baa ka dhaxaysa Gaalkacyaan ka hadlayna annaga ugu hayaan runtii shaqo aad u adag bay hayaan aysan lacag ku qaadan ay bulshada ugu kaalmeynayaan kaamanka iyo way tagaan dadka bulshada oo aadka u daciifsan way ka warqabaan runtii waxaan dhihi karnaa aad ay u mahadsan yihiin iyagoo wax mushaar qaadan inay inta noogu shaqeynayaan bilaa mushaar annagu hadana bulshadii waa mahadsantiin baan leenahay xildhibaanadeena aad ay u mahadsan yihiin shaqo wacan bay noo hayaan annaguna raali baan ka nahay waxa ay la xidin Cali waxaan ka socdaa ururka nabadda horumarinta deegaankan aan ka socdaa haddana waxaan balance la siinahay wasaaradda haweenka haddii aan ka hadlo su'aashan ah golaha deegaanka ay sidee u wada shaqeyn karaan bulshada yani ayagoo ka shaqeynaya arrimihii bulshada waa su'aal runtii aad u fudud deegaankeena wuxuu leeyahay dawlad hoose waxaana ku dhex nool golo deegaan annagana waxaan nahay bulshadii deegaankan ku nooleed isla markaasna xiriir iyo maxaan ku dhahdaa wada shaqeyn deegaankeena sidii kor loogu qaadi lahaa waxyaalaha dhibaatooyinka u ah oo deegaanka ku soo biiray in bulshadii haddaan nahay annagana aan ka qayb qaadano oo bilicdii magaalada oo kale aan soo celino horumarkii magaalada oo kale aan u doodno in aan iskaashano xiriir aan yeelano annagoo ka hadlayna in bulshadu markasta aan la siiyo wacyigelin ku salaysan sidii deegaanka dhibaatada haysata looga samata bixin lahaa oo advocacy iyo codad loo sameyn lahaa si kasta ha ahaatee wasaaradda haweenka iyo xuquuqul insaanka dowlad goboleedka Galmudug ayaa maalmihii la soo dhaafay deegaanada Galmudug ka waday tababaro noocan oo kale ah sidii kor loogu qaadi lahaa tababarada dheeriga ah golaha deegaanada dowlad goboleedyada iyo qaar ka mid ah bulshada deegaanadaas iyagoona si weyn uga faa'iideystay Maxamed Muxdiin Saxan Soxo 5 Somali TV Gaalkacyo